حويني دولدي كميل جاركا شيخ شريف شيخ أحمد أهنا مشرح أتاجن حلك مدحتنمة الصومالية أيام دي بقصو لابتي مقالة مقدشو كدي مركي وكسو دقاي قرون كذا عد أيا وحاو شير جرائدكو قبتي قداها مقالة مقدشو وحاونا شيخ شريف وآدامو بدن ووشيدي دولد ومدح ذكية هي حسن شيخ محمودة وهرين أيو شيخ شريف وحاو كويدي إن أفرتي سنة لصودا فإن دي بدع بدن وكوين بالدلك الصومالية وأوقتهين 4 سنة كهر ماشي واحد جوجان يا مانتا ماشي واحد جوجان وحن فيليني أنا وردن أما سومالي وردن إن كنت إسبدل معنا له وكي أي كتها معي أمد الصوماليات هي ضدك جعل بأوضع لكن واحد عضي عكسي إنه واحد من سنة ماشي للجوجمانت وعلى قدم بيع لنع والبر سياسة لقالة أمني أرمي بلشو اسمها ciidamada uu sheegay Sheekh Shariif markii uu talada dalka uu ka dagayay in meel fiican ay mareysay ayaa waqtigan waxa uu ku tilmaamay in dawladda si ku talagal ah sida uu hadalka u dhigay in ay u kala daadisay ciidamadii dhisnaa ciidamada qaranka waxaan aaminsanahay aniga si ku talagal ah in loo kala daadiyay dhinaca dhaqaalaha waxaan aaminsanahay si ku takrifal ah oo ku talagal ah in madaxda qaranku ay u dhunsadeen ummadana dhuunta ay uga qabteen si u fududaato dadka inay xukumaan waxaa jirta maamahaya la yiraa oo carabtu ay leeyihiin eygaaga gaajaysiha ku raacay markii laga baxay dawladii ku meel gaarka loona gudbay in dalka Soomaaliya uu helo dawlad rasmi ah ayaa waxa uu tilmaamay Shariif Sheekh Axmed in taageero badan ay ka heshay beesha caalamka iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka balse dawladda ayuu ku eedeeyay in taageeradaasi ay heshay in aysan ka faa'iideysan waxaan rabaa inaan idin sheego fursadaha ay heshay dawladdan oo ay beerdarayso waxay heshay ixtiraaf buuxa waxay heshay dhaqaale waxay heshay isgarab istaag dhab ah oo adduunka u garab istaago waxay heshay rabitaan shacab Soomaaliyeed oo diyaar ah dawladooda inay dhageystaan maxaa ka nool inta adinka idin weydiina maanta waxna kama nool waxa soo dhanna waxay u dhaceen si ku talagal ah Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale shirkiisa jaraa'id waxa uu ku soo hadal qaaday madaxdii dalka hogaaminaysay 4 sano ee la soo dhaafay in markii hore ay ahaayeen kuwa aan u diyaarsaneen qabashada hoggaanka dalka guul iyo guul daro waxa ka horeeya rabitaan ani waxaan aaminsanahay madaxda qaranka maanta joogta ay xilku ka dhamaaday asal ahaan ba uma diyaarsaneen inay gutaan waajibkooda ee waxay lahaayeen dana kale niyadooda wax kale ku wajahneed taas ayaana keenta maanta meesha la joogo gabagabadii shirkiisa jaraa'id ayaa waxa uu baaq ugu diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha aqalka sare waxaan soo dhaweynaa mar kale inay maanta noo jiraan labadii gole waxa sharciga maanta oo la soo doortay waa labadii gole waxaan rabaa marka inaan fariinteeda u gudbiyo waxaan rabaa inaan idhaa mas'uuliyad weyn aad saaran oo taariikhi maanta waa arkaysiin maanta xaalad dalku meesha ay marayso dhinac walba dhinac siyaasadeed dhinac amni dhinac mataqaanaa bulsho dhinac mataqaanaa dhaqaale haddii aadan doorana cidda cadka ah niyad u haysa inay wax qabato u istaagaysa inay dalka midayso dana aan ka lahayn kursiga aan ahayn shaqada loo wakiisho inay qabato dalku wuxuu aadayaa meesha meel ka liidata Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya horena waxa uu madaxweyne uga soo noqday dawladii ku meel gaarka Keen Cumar Makaraan